السلام عليكم كسو دوادا مركلة وبنار كيني إن شاء الله أسبوع لها أها أسبوعا waxaan ku jirnaa talaado maanta oo webinarkii labaad booskiisii ayaan joognaa ujeedkiisu uu yahay inaan live trading samayno oo suuqa isla fiirino fursadaha suuqa ka bannaan isla qiimayno waxa la yiraahdo kuwa inoo furan ka hadalno kuwa soo dhow aan ka hadalno sidoo kalena aan mentorship idin siiyo oo aan su'aalihiina ka jawaabo ciladaha idinka haysta tradekan ka jawaabo wixii kale oo markaas jira oo موضوعنا كسابسن إن شاء الله إننا كوفر قرينه waxaynu ku jirnaa bishii June maanta waxay maraysaa 8 asbuuceedii labaad ayaa inoo socda asbuuc hore 3 bari baan ku lahayn asbuucan ayay si toos u bilaabatay last week Friday-dii waxaa jiray fundamentals fara badan sidraadeed ayaan trade badan aan last week u gelin asbuucan waxaan rajaynaynaa suuqyo badan insha Allah inay diyaar yihiin oo fursado badan inuu ka heli doono insha Allah hadda waxaa inoo furan laba trade oo kala ah GBP/AUD iyo USD/JPY GBP/AUD already TB1 ayay ku dhacday USD/JPY na markii ugu dambeysay waa ku way ku dhaweyd TB1ka labada trade waa trade mustaqbal leh mid walba 100 BB ka badan ayaan ka rabnaa oo ilaa TB4 ay inoo leeyihiin setup-kooda waa isla fiirin doonaa maanta insha Allah ay sidii ku yimaadeen sidoo kale qayb idinkeedin ka mid ah insha Allah ayaan muudka ka qaadi doonaa deetana aan su'aalahooda ka jawaabi doonaa sida walba ballantu ahayd inaan su'aalihiina ka jawaabno muhiim waaye inta waxa dheer daraad mise 2 weeks ago waxa idin sheegay inaad Umar la xiriiri kartaan Umay Express oo idin soo saari karo trade lacagiina ku trade karaysaan dad badan baa la xiriiray idinkeedan kamid ah ma oran anigu degdeg wax kugu siinayaa 5 daqiiqo waxa inaan ugu badnaan 24 hours bay qaataa baan ku laakiin hadaad barqa u tagtid oo kale waxa laga yaabaa qalbiina lacagtaada hadaad waxa waaye aad subax u tagtid oo kale waxa laga yaabaa duurkiina lacagtaada marka ha oranina macalinkiiba wuxuuna soo yiri inuu 5 daqiiqo lacagta lagu bixiyaa 5 daqiiqo lacagta lagu siiyo niman dhalinyaro ay dadaalaya weeye idinka idin shaqeynaya ha rabshinina marka insha Allah oo idinka laftirkiina aqli ku dara marka withdrawal ka samaysid hadii galab aad la hadashid oo kale maybe next day inuu dhacdo duhur barqada dambe oo kale u dhacdo laakiin hada subax ama duhur ama xilli fiican oo xafiisyadu furan yihiin hada u tagtid waxa laga yaabaa isla maalintaas inay idin sameeyaan dabcan dadka ku badan oo stiilad badan bay caawinayaan azaatay aniga wax walba iskuma focus gareyn karo escrow account aniga waa haystaa waliba escrow ugu weyn baan haystaa iyo de linkigeena idinka oo dhan baa ku jira laakiin ma rabo inaan waxa la yiraahdo buuq kale isku furo وأنه أنا لعقت إذن سارية أنا لعقت حد إذن كلا حولية بس وقتي وحرب أنا فوركس كجليه تريد كديارين سجليه زوم كجليه إن شاء الله مركز ديسكورد كشوكتان أنتي نوح فهمسن أنت كلا عن زومك سو حاضرين أنت كلا عن لايف كتوس سلسة عن سيدا أفهمسية ونمن تدالي نمن كاس إن جروبيا كلا بدن ولا ميدنا ويتشران حدي سكريل أهيستي دي ماستر كار كعولي كله بحث أيضا أوبشن كوبنان جست وتشويس ديريا أو تشويسس كهوري أو هوري وتشري يعني دين قدرة كليه كاس وكاس إن شاء الله مرة بينا وقت بدن إن قدمه إن وبلابن دورنا إن شاء الله زوم ك أما وبنار كدمات كيس وحجري دونا إن أرضي قيب كميدة أن إنتن عن موت كقاعدة إن الله شكيست إن شاء الله سؤاله ذا كجوابه طبعا tobankii qof oo aan sidaan oo kale ula sheekaystaba ugu yaraan 1000 qof oo idinkeedin kamid ah ay matalaya waxa ogtiin kumanaan kun oo qof inaatiin ilaa 6000 oo qof dadku dhawaatiin waxa la yiraahdo so 6000 oo qof one by one loogu ma jawaabi karo waxaan isku dayi doonaa every week ugu badnaan 3 ilaa 5 qof inaan soo geliyo live-ka ay ka hadlaan ciladaha haysta ay ka hadlaan dhibaatooyinka ay la kulmaan badanaa anigana waxaan rajaynayaa dhibaatooyinkaas inaan xalliyo kadibna halkaas uu ku saabsanaado dad ka badan qofkaas uu ka yimid okay so intaas waa intaas insha Allah waa bilaaban doonaa screen-keena share garaysan doonaa si aynu insha Allah trade-yadeena uga hadalno waa hagaag ma sha Allah waa ku soconanaa waxa la yiraahdo sidaan idin sheegaba usbuucan wuxuu noqon doonaa usbuuc ka qurux badan kii la soo dhaafay sababtoo usbuucii hore wuxuu ahaa أسبوعاً فوكس كسارني إن وحلا يراهدو وحيالها إن fundamental كي وحاس نيجي يراهدو عبد العزيز والله $20 يا $5 يا كنت شايفيننا كداية
ninkan markaad $10 tiraahdo iisoo saar brokerkiibu la hadlayaa brokerkiibu wuxuu gudbinayaa fayl wuxuu leeyahay hebel baa $10 rabaa loo soo saaro wareer waaye marka haddii aad lacag la soo baxaysaan $100 iyo wax ka badan ha ahaato midda kale $20 kaliya waxba kusoo kordhinaysa adiga iyagana shaqada ku badanaysa marka waxyaalahaas insha Allah waxyaalaha waxa jira aysan muhiim in mar walba sheego laakiin aqliyan idinka baa fahmaysaa haddii maanta oo dhan $6 hadaad tiraahdo iisoo saar ka war oo foil dheer la diyaariyo $6 buu hebel rabaa loo soo saaro wareer waaye laba trade ayaan soo diray wax yar ka hor mid wuxuu ahaa GBPAUD halkan ayaan ka soo dirnay intrigeena bartaan ayuu ahaa TB-gu ku dhacay intrigu ku soo laabtay mar labaad buu TB-gu ku dhacay TB1ka TB2geena waa 50 bib mise waa 55 bib I'm not sure let me check TB2geena intuu yahay TB2geena actually waa 50 bibs mise 45 bibs yeah TB3geena waa 85 TB4geena waa 126 marka waxa la yiraahdo yeah that is trade koodan soo diray trade ka labaad aan soo diray USD JPY ayuu ahaa isagana TB1 ayuu inoogu dhow yahay sida arkaysidba oo TB1 keena muxuu yahay TB1 keena waa 30 bib 32 bib TB2 geena waa 57 bib TB3 geena waxa weeyaan 82 bib TB4 kana u dambeeyana waa 100 bib marka labadan trade ayaan soo diray labada trade insha Allah hadaan ku yara dul cararo anigoo GBP USD ku bilaabaya ama USD JPY ku bilaabaya sida arkaysid suuqan waxa uu ku socday uptrend ayuu ku socday oo halkan downtrend ayuu bilaabay downtrend waa la jibiyay lower high-gana laga jibiyay kadib higher high ayuu samaystay higher low ayuu samaystay higher high ayuu samaystay higher low ayuu samaystay higher high ayuu samaystay iminka halkan waxaa noo ahaa demand zone waxaan ka rabnay demand zone kan dhaqaaq ka bilowdo inuu one more higher high sameeyo oo high-gan uu ka sare maro laakiin anagu ma warrabno ilaa high-ga inaan sii cirsanay ilaa supply zone halkaa ku jira inta laga gaarayo ayaan ugu talagalnay inaan ku jirno trade-kan so simply markaan aragnay liquidity-ga meeshaan abuurmatay waxa kaliya aan sugayay aniga waxay ahayd liquidity-gaas inta laga soo jebinayo ayaan sugayay liquidity waa la soo jebiyey kadibna waxaan isku dayay dhaqaaqii liquidity-ga soo jebiyey inaan gaar u daawado oo aan isaga ilaashado kadibna marka isaga break of structure lagu sameeyo inaan fursadeeda abuurto so marka 15 daqiiqo tagtid waxa arkaysaa lowgu dambeeyay waa kana highgiis waa kaasa lowgiis waa kana dhaqaaqan 15 minute-ka ayaa jebiyey hor highgeena soo dambeeya kadibna wuxuu ku soo laabtay last candle of mitigation oo candle-keena inoo ah kadibna trade-keena halkaas ayaan ka soo diray oo waxa weeye waa textbook example uma baahna in waxba lagu celceliyo kan kale GBPAUD almost ugu qisa dhawaa trade ahaan suuqu wuxuu ku socday uptrend sida arkaysid halkan muxuu ahaa higher low higher high higher low higher high ina potential higher low halkan ahayd laakiin si rasmi uguma kormarin sida daraadeed meeshan waxaan keenay liquidity waa la soo jebiyey halkan demand zone baa ku jira big demand zone and then waxa dhacday waxa anagu aan rabay liquidity marka la soo jebiyey inaan gaar u sii ilaashano the last candle of mitigation in dib loo cuno in waxaan ka wadaa manipulation ku dhaco oo lower high la jebiyo so marka hoos u degana 15 minute waxa ka arkaysaa lower low lower high lower low lower high lower low kadib kan ayaana loo jebiyey sida arkaysid deetana waxaa soo laabtay last candle of mitigation oo halkaan ayaan trade ka galnay mar labaad ayuu entry ku soo laabtay laba jeer ayuu TB1 keena ku dhacay oo aan isleeyahay 30 bib miyaan so 28 bib so waxaysanina trade kana insha Allah mustaqbal ayuu leeyahay oo suuq wasbuuca oo dhan waa uu dhutinayay hadii GBPAUD ay wax buy ah ku hartay dabcan meesha u dambayso buy laga gali karo waa meeshan ugu meesha waxay ka dambeeyay hadii uu afkan jabiyo waa ku deenaya suuqan oo ilama ah inuu dib dambe u buy abuuri karo that's why aan halkan u dhiganay high low geena halkan high low ka wada sare that's why halkaas u dhiganay waxa la yiraahdo that's why halka u dhiganay stop loss keena meesha ka hooseysa labada trade already waa ifran yihiin sidoo kale linkiyadooda waan soo diray labadaba waan soo diray hadii aad tagtiin meesha ay ku qoran tahay trades website-keena oo USD JPY signal waa ka GBPAUD signal waa ka maalmo ka horna waxaan soo diray mise Monday-dii bay ahayd shalay bay ahayd actually sadabiyadooda waan soo diray hadda xast GBPAUD exactly wixii aan ka rabnay bay samaysay see this is meeshii aan ka rabnay inta iga noo samaysay in halkan timaado lowgaas one more time kadib ay halka high ka samaysto jibisa ku soo laabato that's exactly what I did so much meeshii bay timi way jibisay oo ku soo laabato okay and then USD JPY let me see USD JPY
ayadana shalay baan soo diray waxyaalaha sababta aan soo diray waxa weeye lacalla haddii aan haleeli waayo trade-ka inaan interest ka soo gaarsiin waayo idinka la inkarabana si tiyarsan ayadana soo ma jeedid same story bartii aan idin rawaynay timaadaa kadibna inaan kor u baxdaa oo break structure noo samaysaa kadibna waa inay kusoo laabata okay waxa la yiraahdo ayadana sidii ayay samaysay sida aad ka arkaysid exactly tabtii aan ka rabay ayay samaysay tiriyada kale oo aan idiin soo diray waxa la yiraahdo iyana waxa ka mid ahaa waxaan ku soo bilaabay DXY-dan aan ku soo bilaabay EURUSD baa ku xigtay AUDUSD baa ku xigtay NCDUSD baa ku xigtay USDJPY baa ku xigtay and maxaan kaloo soo diray waxaan kaloo soo diray GBPUSD GBPJPY GBPAUD GBPNCD Euro GBP Euro JPY Euro AUD Euro NCD intaas soo diray iminka aan dib u wada fiirino dhammaantood inay iska bedeleen qorshihii aan ka lahayn inay weli tabtoodii yihiin haddii aan DXY-da ku bilowno sida arkaysaanba DXY-da aniga waxaan ka rajaynayay in waxa la yiraahdo ay awood yeelato oo ay kor aado hase haatee waxaan ka filanayay hoostaas inay tagto oo ay ka kacdo balse waxaa muuqata inay halkan inay this candle ka kacsa ayaa muuqata oo asugu yahay last candle of mitigation keeni is red candle as a zone inay uga kacday ayaa noo muuqata kadibna kusoo laabatay hadda ay ka kacso balse optionka aniga aan ka haysto waxa weeye ama sida aan uga fakarayo sida aan uga fakarayo aniga dollarka waxaan uga fakarayaa inuu si ku meel gaara ama temporary inuu awood u yeesho waxaan ogeyn in numberska soo baxay BMI-ga iyo CPI-ga iyo xogtii soo baxday oo dhan last week kulli inay ahayd xog aan xumaan u keenayn dollarka balse dhinaca kale marka la eego dollarka waxaa ka jira inflation weyn oo dalka Mareykanka ka socda oo isagu dhibaato ku ah sidaa daraadeed xaalad waxay ku jirtaa labayn ah oo hadda halkan weekliga sida ugu dhufatid oo kale waxaad arkaysaa muddaba in suuqaani uu ku jiray maxay muddo inuu ku jiray consolidation how many weeks buu consolidation ku jira 1 2 3 4 5 the last 5 weeks hal candle oo nafla suuq ma dhaqaaqay okay haddii consolidation kan uu hoos ka dhacay aan qiimeyn waxaan ka rajaynaynaa in one more time kor soo baxo at least zone kan soo buuxiyo kadibna hoos u daato so wax momentum ma suuq kama jiro hadaa aragtay anuu signal soo diray micnaheedu ma inaan signal diiday inaan diro micnaheedu waxa weeye dulqaad baa loo baahan yahay marka ujeed suuqu inuu sida daag u yahay oo sida faaruq u yahay for the last 5 weeks this is 1 week candle ka saa u jeega arkaysid week dhan buu inta suuq dhaqaaqay week la soo dhaafay dhan saas u ah korna ma aadin hoosna ma aadin week ka horeysa soo ah week ka soo horeysa soo ah kii ka soo horeysa soo ah 1 2 3 4 week shanaad oo waxa jira consolidation ayuu suuq jira sidaa daraadeed lama rabo in aswaashid oo aad tiraadid maxaa tiri loo heli waayno annaga trade-ka waxa na maamula ama trade-na helinaya in kale waxay ku xiran tahay waxa la yiraahdo waxay ku xiran tahay janna kale price action haddii price action ku trade na siiyo wuuna siiyo hadduuna siin waayana na muusi okay sidaa daraadeed ayaan USD-yaasha intooda badan weli aan ugaga jiray difaaca Euro USD waxaan isleeyahay halkan inter ayaa ku jira okay liquidity ayaan halkan ka haysanay liquidity ayaan halkan ka haysanay waa kana dhaqaaq liquidity jabiyay last candle of mitigation keeni waa kana wala meesha zone kan ku beegan maxaan ka rabnaa marka suuq maadaama uu break structure kan sameeyay liquidity cusub oo abuuray liquidity hore trade baan ku qaadanay iska dhaaf liquidity cusub oo abuuray waxaanu ka rabnay in uu ku laabto candle ku dambeeyay oo ah candle kan asaga markuu laabanayo haddana break structure ka yar ayaa halkan laga yaabaa inuu inooga abuuro so isla bridge waxaa dhici karta ilaa caawa inaan meelahan USDJPY uga helno fursad Euro USD fursad sell ah oo inta yar ee uu dollarku awood leeyahay waxaa dhici karta in imbalance-ga soo buuxo kaasoo laga yaabo inuu noqdo ugu yaraan wuxuu noqon karaa ilaahay noo alfo waxa uu noqon karaaba let's say 100 pips waa ka heli karnaa haddii calaf lagu leeyahay weeye okay balse halkan option baa ka haysanaa korkaasna option kale aan ka haysanaa labadaas midka fursadda selka aan ka helno ayaan qiimeyn doonaa waxa ayna ku xiran tahay inaan halkan fursadda selka ka qaadano iyo inaan halkan ka qaadano waxa ay ku xiran tahay sida uu u dhaqmo dhaqaaqa yarka ee hadda kor u socda ee aan u jeedno inuu abuuranaya maxay higher low higher high higher low maybe no higher high cusub abuurto okay marka sidaan oo kale ay shakadu marayso 15 minutes u degan kartaa as low as you can ba u degan kartaa just si aad u soo heshid confirmation rasmi ah oo aad trade ku qaadato so don't be surprised haddii aad aragtid anigoo soo diraya Euro USD oo fursad sell haddii aragtid anoo soo diraya
isla la yaab kula noqon sababtoo ah waa suurtagal waana wax dhici kara asbuuc AUDSD almost same story weeye laba area ayaa jirta areada rasmiga ah ee aniga aan xiiseynayo runtii areadan kore weeye aan isleeyahay fursad ka heli karnaa intaan waxaas oo dhan ku dhawaaqin waxaa laga maarmaan inaan xusno AUDSD finally uptrendkan mustaqbalka lahaa waa uu socon waayey uptrendkan aan isleeyahay kor buu aadaya uu socon waayey oo higher highgaas higher lowgiis waa kana higher lowgan higher highgaas oo abuursana higher lowgan maxaa ku dhacay waa la soo jibiyey so eventually waxaan ka sugnaa suuqu inuu korkaas booqdo goor uu booqdo balse baygan inta aysan dhalan korka abuuqan waxaa dhici karta sel inay halkan ku jirto selku meeday kan maadaama la jabiyey aagan ayaa selka filanina inuu ka abuuro kadib markuu halkan yimaado maadaama awal halkan fursad baya laga sugayey oo sidee looga sugayey meeshaan maxay ahayd meeshaas waxay ahayd lower low ayay ahayd soma for that lower high kadib maxaa ku dhacay lower high waa la jabiyey sida arkaysid yaa jabiyey dhaqaaqana jabiyey so maxaan ka filanaynaa suuq waxaan ka filanaynaa inuu dib ugu soo laabto meeshaan okay la jabiyey kadibna uu fursadda bayga abuuro sax hadaatee si tan loo helo marka hore maadaama dollarku uu awood leeyahay waxa dhici karta momentumna uu halkan ku socdo oo ma ignore gareyn karno halkan waxa yaala lower low halkan yaala soo ma halkan waxa yaala lower high halkan waxa yaala lower low so qorshuhu waxa weeye in lower high laga sara mari doonin maadaama aan rabno in lower high laga sara mari doonin maxaan haysanaa laba option waa kana liquidity-giisu wataa option kalena waa kana oo liquidity-giisa ayaa halkan ku jira asaga so halkan iyo halkan midkood sababta aan fursadda selka uga raadinayo waxa weeye in already uu down trend suuqaani hadda ku socdo so down trendka uu hadda ku socdo ayaa waxa la yiraahdo ayaan doonaynaa insha Allah inaan ka faa'iideysano ma rabno marka anagu in lower high laga sara maro oo selku uu dhasho haddii lower high laga sara maro la yaab nagu noqon mayso oo wax la filayo laakiin laga sala marin ayaan rajaynaynaa oo aan selka halkan ka helno si fursaddan bayga iyada dhow horta oo soo dhalato kadib uu selkaas loo yimaado so because of that daawasho ayaan ku wadaa hadduu ilaahay idmo waxa la yiraahdo AUDSD oo aan ka rajaynayo haddii break structure ay halkan naga siiso insha Allah inaan ka faa'iideysano sidoo kale NCDSD waa same qiso waxba kuma kala duwana inta aan ka sugayo AUDSD ayaan iyadana ka sugaynaa haddii fartaydu ay ku muuqan weydo ama aad shaashadda si fiican u arki weydid internetkaaga weeye internetka meesha kore waxa la yiraahdo iska hagaaji meesha ku qoran tahay low risk fee oo kale meesha ku qoran tahay low minus risk fee meesha ku qoran tahay soo furo kadib halka ka hagaajiso okay dadku way kala internet fiican yihiin so NCDSD same story lower high higher low wala soo jibiyey higher low soo jibiyey suuq maxaa ka filanaa in levelkan ama levelka midkood inuu ku laabto because liquidity-gan waa kana liquidity last candle-keedii sheekadan dheer waaye waxaan ka rabnaa marka inaan helno the specific 1 hour candlestick meeshan ku jira ayaan u baahanaa inaan helno insha Allah here somewhere here maybe this one asagana waa ilaashan doonaa insha Allah waxaynu trade-keena ku xirnaan doonaa sida uu suuqu uga dhaqmo halkan oo uu inooga abuuro fursadahan hadda halkan high low uga jirna high waa kana high low kala abuurmaya high kalan korka ka rajaynayna hadii ay inoo dhaqdo hadii kale waxa dhici kara inuu hoos soo daato oo uusan chance ka soo inoo abuurin GBBSD ayaa ka mid ah lacagaha aan actually fursadaha ka sugna GBBSD waa lacagta ugu qaabka daran suuqa oo dhan oo waxa ka socda USD ayaa iyadana ka socda momentum ma jiro dad sidaad gaaf u siiyo kala daa weekly-ga tagtid waxa arkaysaa for the last 4 weeks waxa arkaysaa in wax dhaqdhaqaaq soo sameeyo kan iska badaa for the last 3 weeks ko iyo 2 iyo 3 iyo kan hadda lagu jiro 4 especially asbuucan iyo labada asbuuc ka horeysay korna uma dhaqaaqin hoosna uma dhaqaaqin suuq so you can see there korna uma dhaqaaqin hoosna uma uusan dhaqaaqin so ma jeedin ko iyo 2 iyo 3 sida daraadeed marka waxaan ka rabaa aniga inaan sugo oo aan iswaalin inta badan waxa aad ku faa'iidi doonto waa patience iyo dulqaadka bayga halkan aan ka rajaynayay ma uusan xaqiiqoobin sababtoo ah kan lama jibin haddii kan la jibin lahaa bayga waxaan qaltaagi lahaa sida daraadeed waxa kaliya hadda ii muuqda aniga waa selka oo maxaan sugayaa liquidity-kan in la jibiyo halkan la yimaado halkan marka la yimaadana inaan isla meeshaas ka raadiyo break of structure oo ah the last 10% of the strategy then fursadda selka ayaan ka raadin doonaa haddii wax GBB aan fursad sel ka qaadanayno lacagta ugu soo horeysa ayay noqon doontaa insha Allah GBB JPY waa same qiso
هسه iyadu waxay kaga duwan tahay uptrendka ayaa wili nool oo waxaan arkaynaa in suuqan wili uptrend yahay oo higher lowgi suuqa waa kana higher highsina waa kana waxaan u jeednaa in halkan uu downtrend ka soo abuuranayo lower low lower high lower low potential lower high baan meesha ka rajaynaynaa kadibna fursad cusub oo sala suuq inoo siiyo okay so si marka uu halkan yimaado suuqa ayaan fursadda baaga ka qaadan karnaa sida kaliya oo aan baaga ku qaadan karnaa wax kale maaha waa in la jabiyo downtrendkan yarka ee hadda socda kan muujada downtrendkan hadda socda in la jabiyo ayaad u baahan tahay downtrendkan hadda socda marka la jabiyo kaliyeeto ayaan fursadda silka ka faa'iideysan doonaa fursadda baaga soo maxaa dhici karta suuqaani inuu korkaas tago one more time kadibna hoostan yimaado kadibna inoo sameeyo higher lower high baan ka wadaa kadibna halkan yimaado kadibna kan beriga la jabiyo markaas ayaan fursadda baaga rajaynaya so wax halkan ka dhacay exactly waa wixii halkan ka dhacay kale wax halkan ka dhacay kala rabnaa soo saa u qabano move kan oo kala saa u qabano oo 200 MB ka ah waa inaan kan ilaalinaa soo ma jeed mar walba uu sameeyay waa kana iyadoo kale alaabtana ku xigtay soo ma jeed waa kana iyadoo kale maalinta counter trend uu meeshan ka dhaco maalintaas trade ku dhaqaaqay waa kana iyadoo kale soo ma jeed for the last few months taas ku soo socday suuqan marka hadii selku uu chance ku siiyo oo marka halkan la yimaado liquidity and everything hadaa heshid fursadda selka ee hoos socoto waa ka faa'iideysan kartaa hadii kalena waxay noqonaysaa inaa baygaaga iska sugtid laakiin sabab ah bayga kala barka suuqa halka uga gashid ma jirto sababta zoonka kaliya ee noogu soo sokeeyo waa kana wax liquidity oo trade-ka nagu khasbay hadda inaan qaadanana ima muuqato JBNCD lacagtan isleeyahay insha Allah fursad sala ayaad ka rabtaan actually lacagtan jimcadii ayay chance inoo abuurtay oo waxaynu ogeen in ay waxa la yiraahdo halkan timi ana suusta halkan higher low inoo ahayd higher low waa la soo jabiyay suuqa xagee buu yimi exactly wuxuu yimi last candle of mitigation because liquidity waa kana last candle of mitigation candlekan green ka ah way halka ku jira suuqa markuu halkan yimi qofkiina idinkeedin kamid ah ka faa'iideystay well done oo intuu hoos ula degtay 170 180 ka qabtay waa ku faraxsanahay hasa hadii aadan qaban there is one more chance oo suuqa halkan uu ku imaan karo halkan markuu u yimaadana ayna fursadeena mar labaad ka faa'iideysan karno si chance-ka uusan ku dhaafin maxaa sameyn ka dhaaso danka daqiiqo ilaa 15 minutes ka tag kadibna si joogta ah oo hoose ula soco waxa meeshan ka dhacaya because waxa dhici kara inuu dhiso trend yaro sidaas oo kale kadibna break structure-kiisu markuu dhaco fursadda selka ah all the way down ka soo qaadan karno okay ogbaad ayaa qaadatay qof kale oo qaatay ma jira trade-kaas qof kale oo qaatay ma jira gabadhaas maaha ما شاء الله ولدنا دقاتي confidence أي كون كردنسا إن السيستم كتريد جريسين وحلو بعيا رنتي يبي بكاد والعقد أيضا عن إسلام حي برنامج أيام كتشوغينا أسبوعاً بكوس وحكي كده رينجين سيدا أركزي ثابت أو صود رسف كينا وحوينا إذا تصو إن سنحين العقد في عام أوكي إسماعيل محمد إسماعيل أي إسقون قاتي عبد الله تي بي trending ayuu ka baqay waa run wax laga baqo waa ahaa trending oo momentum waalan ayuu ku socday suuqu momentum kan maalida ah ee arkaysid inuu xataa trend xawaari soconay isku dhigaya laakiin sababta loo galay kan ma suuqu markuu halkan yimi waxa la rabay inaad u digatid 15 minute-ka ilaa 5 minute-ka u digatid okay kadibna isaga qiimaysid oo aad raadid kan baa la soo jebinayaa okay waa kana levelkan ku sheegaya كم بالرينا داوتيد هاير هايغان سو ما جد هاير لوغي سوا كنا كم بالا سو جبينيا marka uu kugu laabto halkaasna aad fursad qaadata ayay waxa la rabaa marka kaliya ee lagu ogolyahay inaad short time frame ka isticmaasho waa markaan oo kale ee uu suuqa jaanisana kusoo ku siinayo uu ku laabanaya meeshii it has to go back I think so yeah wasada hadda sugeynaba has to go back qof baa wuxuu uga haray 140 bib JBNCD waa dul jooga dalxa su'aashaada soo qor samatar xasan wuxuu yiri salba ugu jira 80 bib baa ka qabtay abtidoon walaad xuseen wuxuu yiri 100 baan ka qabtay 100 buu taagan yahay fiiri levelka amaraysaan runtii wax lagu farxo weeye 100 macnaha wax ka dhigaysaa 100 wax yar macnaha levelka iyo kalsoonidaada meesha marayso iyo heerka istiraatiijiyadaada ay wanaagsan tahay waxa maraysaa inaad raadid 100 wax yar inaad ka soo qaadid ma sha Allah that's wonderful and shucayb wuxuu yiri 120 baan ka qabtay
Mr. Ciise Xasan wuxuu yiri saa u sugiyey markaan ka dhaqaaqay bay daadatay maasha Allah. Well done guys. Trade kan weli chance waa ka noolyahay insha Allah waana gaadayna. Euro GBP waa lacag kale. Wow, Euro GBP actually again ayay ku soo laabatay. Okay, Euro GBP fursad ayaan ka gaaday halkaan ah. Okay. Yeah, I'm still waiting in a korkeenaan timaado insha Allah. One more push baan ka rabnaa Euro GBP halkan ku timaado. Sababta trade-kan aan u gaadayna wax kale ma aha. Kan markii la jabiyey oo hoostaan la yimi all the way waxaan rabnay in korka lagu soo laabto laakiin waa dhici weyday. Kadib suuqu muxuu abuuray lower high buu abuuray lower low abuuray. Maxaan u baahnayn suuqu inuu trendigiisa ku socdo oo meelaha lower high ka abuuro kadibna uu hoos aado. صح وعقلي أنا سوينا مركو حوالي 15 يمكن تعالى تقولنا إن سوينا كونتر ترمبل وحاها دارنا كسعودة وكلا. First of all let's see what the zone كنا نصحى يسكوبين يا zone كواكنا ولا وركنا actually كنا كمان وايا. So for me وحنا كسوي على عقتان إني بوش عادي يسميس أنت هالك أنت مادو عادي تدالك أوتكتو كده إنه فرصة قادنا وهي علامة سيئة هاي إن وحنا يقحرن waxa la yiraahdo waxa ugu xiran alarm GBP AUD fursadda baahiga ah ee kaliya ka suurtagalka ah halkan jina galay anagu selkan hadda aan u ololayno maaha trendigii weynaa ee saxda ahaa trendigii weyn oo saxda baydan weeye bayda waagi la yimaada ay arki doonaa laakiin maadaama suuqu hadda abuuranayo lower low potential lower high baan ka rabnaa kadibna hoos soo raacina insha Allah. Trade-ka aan runtii gaadayay ee aan Chinese-ka ku waayay kan baa ka mid ah Euro JPY oo aan isleeyahay ilaa galabta insha Allah fursad baa ayaa ka heli kartaan ilaa caawa. Okay, simply suuqa abtiran ku soo arkaysid higher high higher low higher high higher low higher high. One more time ayuu wixii miisaan keeni oo halkan ku beegan before oo zone ka tagin halkan waxa ku jira liquidity. Let me show you the liquidity area. اللهم صل على سيدنا محمد. There is a liquidity area right there. Okay. And then waxaan u baahnayn suuqu inuu jabiyo lower highs because lower highs waa kana all we need to see hadda waxa weeye suuqan soo laabto oo last candle of mitigation 1 hour ka inuu yimaado. Last candle of mitigation may waa kana كان مركو يماذا we have a trade now we can take إن شاء الله. وحلقة ساعة حيد GBP CAD ورنتي أنا وضع السعودة إيجا فكرت الشرق قلب أو حكوا ذا يورو كاد بانكوا ذا يورو كاد تريد كان ديار بناء هارنتي أو محمد دقائق let's say لحد نيكوبي أو دقائق طريق هذا قرح بدن بها أنت حد يورو GBP كسعودة يورو JPY كسعودة أيها كنعدي وهالك waxaa arkaysaa in liquidity aad ku soo kala yaalo halka waxaa arkaysaa in zone ki yaalo dad oo warka tagtay zone hoostaas ku beegan yahay okay this is the zone and then wuxuu sameystay halkan wuxuu ka abuurtay lower high waa kana lower high waa la jabiyay shalay anagoo mashquulsan ayuu trade-kan daamar runtii lower high waa la jabiyay isla markiina waa lagu soo laabtay xalay buu dhaqaaqay shan saac markay ahayd haddana shalay kowdii duurnimo habeen hore ay ahayd markaani ama jimcadii kowdii duurnimo shalay ayuu one more chance na siiyey from here qofkiina idinkeedan ka mid ah oo ka faa'iidaystay well done ayaan ku leeyahay Mr. Axmed Cabdiraxmaan haddii aan khaldanayn ama soo diray ma soo diray asbuucii ka horreeyay ma soo diray waayahay asbuucii ka horreeyay yurkaad ma soo diray bilaydina soo diray haddaan khaldanayn أسبوعي كورية مصدرة يس مصدرة exactly ماشان كسويني زموجد برتي عن كسويني بيني كوركاس أنا أورمنا هذا محوس سعودة مركا 62 بيبس أيو سعودة I'm sorry إنا سيجنال كحلين لكن وحا أن زومم كانوا قولي دادير وحوية إني سيداس وكلا دعين وأنا كلي على يحيرنان وفرصة دي أنا عن كجاري وين صادره وحمدوني أنا إذن كفايدست بفور أنا كبودين وحكى لو كم يتريد على السوق يورو AUD يورو NCD especially يورو AUD تريد هذا قرح بدن باكر جينيا أو تريد GBP AUD لمدة
waxaa aragtaa in la jabiyey higher lowgeeni ama lower highgeeni in la jabiyey baa aragtaa levelkan ka sugayna levelkan weeye suuq marka uu sida halka ugu soo laabto there's one more chance oo sell oo korka aadi karna sababta korka aan rajada uga leeyahay waxa weeye because higher lowgan ayaa laftirkiisa la jabiyey oo fursad kula sell ayaa halka ka muuqata so waxa halkan aan ka rabno waxa weeye waa buy to sell trade weeye labada trade ka weyn waa sell ka weeye korka aan rabno sababta sell ku weyn waxa weeye because uptrend ka weyn ayaa dhamaaday higher logisiyo kana ayaa la cunay sidaas daraaddeed halkaa markaa kusoo laabano fursad sell ayaan ka rabnaa but at the same time halkan maxaan ka rabnaa fursad buy oo ku meel gaara euro ncd exactly waxay la qasatahay gpp ncd wow euro ncd looks like inay intrigueena kusoo socoto candle waa kana liquidity waa kana horta and this is the candle aan ka sugayna trade-ka da candle ayaan rabnaa inuu yimaado okay one more bush baan ka ragi doonaa insha Allah suuqan maxaynu monitor gareyn doonaa oo sidaas ula soconanaa kan ayaan sidaas ula soconanaa ilaa caawadaan intiri ka weyno ilaa biri waan ka heli doonaa ugu dambeyn hadaynu goldiga fiirino goldiga anay fursad sell ayaan ka rabaa one more time oo sell ayaan ka rabaa ka hor inta uusan buy fiican aadi so meelahan ayaan ku gaadi doonaa insha Allah waxa arkaysaa inuu si qurux badan u sameysanayo maxay higher low higher high potential higher low we need suuqna halkan ku soo laabto halkan maadaama loo jibiyay bartaan markuu soo laabto we have a chance oo aynu trade ku qaadan karno where is the last candle kan markii la soo jibiyay last candle waa kana actually ku soo dhawaaday laakiin waa sugeynaa okay intaas ayay ahaayeen trade-yada aynu soo dirnay kuwa inoo furanna waa aniga ku bilaabayba taxliilinteena oo maxay kala ahaayeen baan ku yiri waxaa inoo furan baan ku yiri GBP AUD oo TB1 taagan dhowr jeer ku dhacday laga doonayna inaad qayb ka xiratid USD JPY oo iyaduna TB1 ku socota labadaas trade ayaa hadda inoo furan wixii kale oo trade ah oo soo muuqdan insha Allah waan soo diri doonaa trade diyaarsan haddii aadan diyaarsan karin insha Allah trade-yadan soo diraya qaadan doontaa jannada Allah ku barakeeyo intaas waxay ahayd wixii aan soo diyaariyay asbuucan ama aan doonayay inaan maanta insha Allah isla dul marno waxaa jirta waxaan haysanaa website baan haysanaa waxa la yiraahdo waxaan haysanaa baa ka wada application la yiraahdo Discord oo ardaydu ay ku wada jirto laguna wada trade gareeyo wixii afkaar ah wixii waxa la yiraahdo su'aal ah ay kaga jawaabaan waxaan isku dayi doonaa marka asbuuc walba markaa sidaan kala zoomka u soo galo inaan 3 qof oo idinkeedin ka mid ah ama 2 qof oo idinkeedin ka mid ah inaan asbuuciiba aan su'aalahooda ka jawaabo oo aan live-ka ka soo dhex muujiyo deetana wixii ay tabanayaan wixii fikrada oo ku jirta aan insha Allah aan ka qaado kadibna insha Allah aan waxa la yiraahdo ka dabageeyo okay USD CAD kuma aysan jirin safkeena korkaasaan ka sugay aniga baayo self USD CAD meel dhex ayuu suuq maraya sidaba daaragta suuq bartaa maraya dhexda maraya ani wax shaqaayaan ku leeyahay ma jirto suuq ama inuu kor joogo ama inuu hoos joogo lacag walbo aan safka ku soo darina sabab aan ugu soo darin baa jirta okay marka asbuucan waxa inoo diyaar ah 3 qof oo ardayda kamid ah ayaa inoo diyaar ah asbuucan insha Allah aanan wici doonaa oo aan insha Allah la hadli doonaa qofka koowaad insha Allah aan soo gelin doono kolkeena waxa weeye ninka la yiraahdo Liban Ahmed oo ku magac dheer Shujaac Liban asaga ayaa noo sheegi doona meesha uu joogo su'aalaha uu qabo ama personally dhibaatooyin ka hor yimi markuu traderka ahaana ama haddaba uu trader yahay calshan intuu xirfadiisa dhisay dhibaatooyin ka hor yimi insha Allah ayaan isla fiirin doonaa si aan uga qiyaas qaadano intiina qof ee la midka ah dhibaatooyinkaas qofkaas gaarka u qabsaday intiina qof iyagana gaar u qabsadeen ayaan isla fiirin doonaa insha Allah okay marka waxaan samayn doonaa insha Allah waan moodkan ka qaadi doonaa Shujaac ay maqlaysid soo dhawow السلام عليكم جنقله السلام عليكم استاذ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا استاذ waxaan rabaa markoowaad inaad magacaaga iyo meesha aad joogtiin ku bilowdid iyo inta aad traderka ahayd oo aad ku jirtay waxa la yiraahdo
Smart Investment Academy website keenaba. bismillah kusoo hortku ustaad adiga ay dhamaan ardayda hayaan academy magacayga waa Liibaan Axmed kuma dhar sujaac waxaan joogaa magaalada Muqdisho masha Allah suuqa foorka saada oo jiraan actually adii 2 sano waa ku jira kasaaro badan waa soo arkay aad u baaxad weyn wax waa soo faa'iiday laakiin waxaa ku jira ardaydii ku aflaxday smart moleyan masha Allah adiga anigu caawisay marka hadda xaaladeeda waa fiican masha Allah masha Allah wax withdrawal ah wili ma ka samaysay wax la yiraahdo trade-yada aan soo dirayno iyo setup-yadan kula wadaagayo iyo sumaamkaan galayno والله أستاذ withdrawal waa ka sameeyay bishii hore ku ardayda signaalada ka faa'iideysta abida soo dirtay awal suuqan degdeg badan ay u jiray oo ahayd ina taxi lacag sameeyo waa gartay laakiin adfaaskaada iyo aan saacidin ma sha Allah wax badan oo ka faa'iideysta ما شاء الله ولدن جنا قله وعربا سويرada aad ii soo dirtay horta ayagoo linki ina soo dirtid si aan u share gareeyo ardayda ay u arkaan taa waa qodob koowaad qodobka labaad waxaan rabaa ina u gudubtid su'aalo adiga ku haysta personal ama waxyaalaha dibka kugu ah ee ka hor istaagnaa ina noqoto trader isku filan ama trader waxa weeye kaligiis meel gaar ah waxyaalaha sababta u noqdo inay ka hor istaagaan maxaa kamid ah san insha Allah uga jawaabo su'aalaha galashan u gudub أنا هانتي يوتكوا مركا لعكت بدن قصارنا أديو لعكت أنا قصارتي كن يلا بكون وكمان تعمل فانت واقرت وكمانان دولار أسوق أنا يوم بدن dad badan baa kula qaba kaliya maaha laakiin waxa ilaahay maadiisa inaa wali joogtid oo aad niyad jabin oo rabtid suuqina ka soo ceshtid ama baa ka soo ceshtid waa gartay niyadiida waxa ku jiro aniga horta meeshan waa dad waxa jira horta ku suuqan iska soo gala iska baxan laakiin aniga ولكن وحيد أنا بسنس عاد كدكتور لوسي وكماري for life أكشرسته لكن أول مستوى جديد أو بس وحقها مثلا رعاية على السماء بس كسماء وعشرة بدل مرة جرين حب مرة جرين أول هو أسكسو بلدي السجنال ما يلعب في جديا هذه وأسكها قف سكتوا من فات وقرتي وحيالك لا أكون مشغول سنمية طبعا أما واشقين سي أما سكول جامعات بعيرين سي صاب ومية وحيالك لا حتى أكون مشغول سنين بس ما أهم قف حرادية وراو حالنا سماع the more you try the more you success بس أنا واحد مش يجرب بعد اسكت عليه هذا تلجرام سنال صدري وحاول بقى بس وقرتي marka fikiraya waa artuko waa marka lacagta qasaaray markaas waa kugu bari markii lacagta ka qasartay waxa ka bar ha ina qasartan artuko marka qaar waa shay fiican saacada ugu furmaan oo u fahamtid oo maxaa qasartay maxaa ku dhacay waa marka su'aalo badan ay isweydiin kadib aandan hada jidkii fiican oo ku toosanaa insha Allah warjina ana سنودين سوسي على مرفع عن إن شاء الله كان قال واحد أوجد بتاع إن سؤالها أوجد مركواي هاي وحنا هي سمي سال لبض الصور إيسو درتي إن لينك كود عدد رادين كرت صور رادي لينك كود أنا سوق إن شاء الله كدبنا سؤالها أوجد السؤال يسوي كويس السؤال عقبة أريد يحسن أو كورالي وحياة أستاذ وكريد أدي أقلو أنا جوا وفضل بدنا نقول فائدة حاول ما واحد أوكي waxa ku haysta waa psychological problem okay su'aal muhiim weeye trade kii oo 100 bib ka suurtagal tahay baa 20 bib kala tagtaa ha marka ka baxo waxa arkaan trade kii oo meeshii target ka tagay waxa fadal shalay galaan waxa ugu baxay meesha okay yaa la qabo su'aashaas ninka la yiraahdo Liibaan Axmed imise qof baa su'aasha la qabto ku soo qor chat ka la qabto su'aashaas sababta aan qayb idinkeedan kamid ah u wareysanayo waxa weeye inaan ogaado meelaha ay u badan yihiin dhibaatooyinka iyo waxyaalaha idin haysta ku soco ishkaaco su'aashaada waa fahmay waa si faahfaahin kartaa haddii inta ku filan tahayna waa si fiican baan fahmay waana ka jawaabi doonaa insha Allah su'aasha xaq inta bisun baa iskusan waa wax la xallin karo runtii dad badan oo حتى عن case study كسميه بجرو one by one إنتان ولا رقمي عن دباتوين كحلنا دنيا عن إسرقنا أما نسكن معنا إيشوجا إسطنبول إيو ملهان
ayaa ka mid ah marka insha allah waa ku tusi doonaa xalkeeda hadduu ilaahay nafteena ugu simo waxaan hayaa linkiga koowaad hadda linkiga ma ii soo baxaya dib madaxgan aan ku biisanaya ma ii soo baxaya linki caadiya soo geli linki ma haysid linki caadiya ku soo dirsaday linki caadi soo meen master maxamed usmaan wuxuu leeyahay kii aan ku jirana asal buu iga dhuftaa kii aan ka baxaa oo 10 bib aan ka qaatana TB-ga dhan buu dhameeyaa imis qofaa dhibaatada haysa asagana runtii waxaa wax aad iyo aad u fudud xalkeeda laakiin waa simple solution waxaa simbalka in la sameeyo is not easy okay waxaa jira simple ah haddana aan easy ahayn yeah of course trade-ka koowaad waa hayaa trade-ka koowaad waa kaasa kan labaadna waa kana original ayuu leeyahay okay Mr. ninka la yiraahdo Shujaac waan u gudbayaa su'aashaas dad badan baa kula qaba hase aatee labadan sawir oo soo dirtay qisadaada maxay tahay maxaa doonaysaa inaan ka caawiyo u gudub fariin noocee baad doonaysaa inaad dirtid horta ko waa ustaad dad waxaa jiraan oo bas markaas waxaa soo dirtay adiga saddex badan adiga saddex baa soo dirtay aniga shaqooya مفسو بالسيجنال إلا أيجا بره ديب وفقان شروع أيجا بسيجنال بين إيش كويسة عادية 100% ضد إفبارونتي فهم سن مهمة اللي ينسى طبيعي هذا السؤال صح وارنتا ما شاء الله تريدان إن أسوق جدب كون ميت كان هرتوا كان صوت دري ويز دي جي بوادان صوت دري كان كلامه حوايه كان كلامه أي دي إس دي سميل أيام كرمنا ما شاء الله إن وحنا أركيا ماشان لكريتي باكو جرت ما هذا صورا لكن وادري مكرا وأشيدا إن وحلا يراهذا إن this is the last kind of mitigation for me كان الكاموين وجدود كاوي وأنا كان انتريجين السي غاقن كعي وكي لور حاجين أنشبيه beautiful سيدو كلا imbalance يا ماشا كتيرة amazing ما شاء الله ما شاء الله well done this is beautiful شنتريد أفرتريد نوع عاسس وما ديارسن كده أسبوعي شعيبه شجاعه انف ما ديارسن كده أستاذ ما شاء الله دب باشو وحلا ربع حد أكله وحلا ربع إنا إسدجسد و$20 لعجة أو أركتي $20 قيمة كل هذا $5 قيمة كل هذا هبل ربع because كن قدر يبقى ملايين نقطة dhibaatada ugu badan oo Soomaalida haysta waxa kamid ah inuu qofku ku qanci waayo wax $100 ka yar ama $80 ka yar taasoo keenaysa qofku inuu riskiga badsado taasoo keenaysa qofku inuu iswaalo oo trade badan galo marka this is beautiful setup-kan ku saxan yahay hadii intaan cilmigaaga iyo caqligaaga ku keentay hadii hal xabad dhiman tahay trade-kaaga sida loo caawisay adiga madan wallahi waqti ku soo qaadsi aad uga caawisay adiga madan aad u maashantaa waxyaalo waxaa jira qofka bini'aadanka value iyo qiimo ku kordhinaya noloshiisa ama xirfadiisa trader-nimo oo wax weyn uga dhigan anigana aan igu adkayn dibna aan igu ahayn inaan hadda halkan kursigayga soo fariisto oo aan trade-kayga diyaarsado oo trade-kayga diyaarsanaan idinla wadaago value weyn bay idinka dhiganta anigana dib iguma ah ma fahmaysaa waxa la yiraahdo dadka inaan ku xiro shuruudo sida lacag bixi kan yeel xagan ka soo dhaca ka samee bla 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 waa wax ifran waana waxa sameyn karo waana wax xaq u leeyahay hadda adiga ku haystee ninka la yiraahdo Shujaac information-ka iga faa'iiday aniga lacag ina laga bixiyo ma u qalmaan mise uma qalmaan wallahi waxa lacag ku bixin jira daa ku sheekay waqtiisa bis group oo signal la soo dhigayo هذه $60 بحجر بشيء. أوكي. then نكا وسؤال راس قريم وبسوق وقولهم موجي أو بس تيجي قال بعد قصة $1 ده هذا
waxaan ka faa'iiday ustaad waa kana hadda tiradka ku soo diray aniga gacanta ku anlaas filisano waa aniga galow ma sha Allah aniga ka faa'iidoonay aniga marka wax tana mudan waa in gadaayid ugu bixiyo wallahi absolute marka waxa la idinka rabaa idinkiina taa promote kareysaan idinkiina ka hadashaan muhiimadda ay leedahay aakhira marka la dhinto nin walba camalkiisu la dhimanaya laakiin dunidan qofku wax ku qabta wanaag ku qabta waa la xusaa inuu wanaag ku qabtay waa la xusaa inuu garab kale inuu ku caawiyo maalinta dhibaataysan sidaan oo kale ama sida u baahan tahay trade u baahan tahay inuu garab kalo haddana aan shuruud kugu xirin aan ku oran kumanaan kun dollar dhiib ayagoo kumanaan kun dollar u qalmo wax aan ku sharaxayo waxa loo baahan yahay inaad ka mahad celisid inaad علشان حتى أنا مهم أنا أي مهل عدسين إنا موجسد إنا information كان فريقة شيء معنانا وقت هذا كله هاي ما شاء الله تريد كان على بدرونتي يسوونه وتريد هذا قروح بدن كركا وكالة سوية تريد كان إن شاء الله سيدو كلا وح حسيد مدن ماشان لو هاير لو ويواني هات الشرحية كني وهاير هاي نيو هاير لو بحال كان سمية ملها سوي مان دونا إن وحلا يرى أسبوع عدمات كسوح لقيا تريد كان إن شاء الله إنه سمية وحين كربنا دابا انت aadan ka bixin waxaan rabaa inaan ku siiyo jawaabta su'aashaada in ahayd su'aashii waxa la yiraahdaa psychologically markaan akhrinayno mawduuca waxa la yiraahdaa waxay ugu yeeraan leaving money on the table bay dhahaan wana lacag miiska uga tagtid so marka trade boqol biiba soo diraado doraad waxaan soo diray euro USD and I hope inaa ka faa'iidaysteen euro USD dan soo diray doraad okay and euro USD دي عند الرات صدر هنا تكفى إذا يا رجينيا and TP3 يلا TP3 مراعين ما شاء الله معروف هذه TP2 يعملها هذا أول TP على لكن أنا كلا برا وبحري see this is beautiful مرة أنت لأنه عنا كلا بقول بي بصدره وحلا الرباع شيء كذا عجيب كواحوية حد بقول كبيب وكل دعوة عرقتها صوما مركي أنا واحد نقولنا تريد markaan soo diray fiiri marka boqolka bib ma muuqan just wuxuu ahaa qiyaas waan qiyaasayna wax hubanti la yiraahdo ma jiro trade markaan soo diray waa kana okay maxaan filayay in suuqani inuu boqol bib dhaqaaqi doono ayaan filayay Soomaaliya kana this was the trade idea aan soo diray then maxaa dhacday let me show you natiijadii and the two way ku jirto Soomaaliya waxbaan rabaa inaan ku fahamsiiyo hadda kadib cabsidaada meesha ka saari doona insha Allah and so waxa la rabaa marka aad sawirkan haysatid waxa la rabaa kan ku muuqdo okay halkan markay wax marayaan oo ever ay tahay meeshan waxaan dhan greenka wali aysan waxba imaan oo 1.22 aan la imaan 1.21 aan la imaan 1.21617 aan la imaan 1.2137 aan la imaan levelkan aan la jibin halka ay wax marayaan inay ku muuqdaan baa la rabaa intaas oo dhan oo la tagi doono sidee ayay kugu muuqan doonaan taladu waa tan marka waxay kugu muuqan doonaan haddii aad wax qoranaysid qorta guys insha Allah videogaana dib baad u daawan doontaan inaa 200 oo kun oo jeer aad aragtay taas oo kale xalku waxa weeye marka trading view-ga ku laabo intaan hadda aan kuu sheegay oo kale raadi oo la soo dhaafay xataa waa lagu ogolay inaad cheat garaysido waa lagu ogolaya trade u jeedo inuu guuleysan doono halkan aan dhaho trade kan aan u jeedo inuu guuleysan doono maaragtay oo u jeedo inuu 500 bib dhaqaaq doono siduu ku yimid dhis adigoo kaliya guriga iska jooga dhis ruleski wixii dhan samee kadibna sawir ka qaado kadibna save garee mid kale sawir ka qaado save garee mid kale sawir ka qaado save garee mid kale sawir ka qaado save garee marka 20,000 oo jeer aad aragtay ruleski oo shaqeynaya marka 20,000 iyo koowaad maxaa is leedahay hadana of course way shaqeyn doonaan bas laakiin waxa fikirka ka haysid baa jira maskaxda ka haysid baa jira ogtahay inay shaqeynayaan baa jira laakiin adoo aan sameyn ama mar yar laba asmaysi laakiin 200 kun oo jeer aad ku celcelin so maxaa la rabaa pick your favorite players hadda soo GBBAUD nooma furno GBBAUD oo kala hadda soo qabo dib u bax every trade or every GBBAUD ka suurtagal ah soo qabo adu every trade baan ku yiri oo every GBBAUD ka suurtagal ah soo qabo okay waxa adag baa inta la sameeyo lixdii qodob baa soo dabagalaysa trade-ka marka qabatay magac ku qor waxa tiraahdaa 2012 bishii 6 ayuu trade-kan ahaa TB3 intaas waa entry-giisa kan waa TB-giisa kan waa save grade kadib soo daabac sawiradii marka soo daabacday galab walba jimcaha akhriyo ku celceli
folder lama raba axmed deeq folder waa la soo dhaafaya qoraal qurux badan ku dul qorqoro sawiradaada kadibna ku celceli okay kadibna hee ku celceli okay GBPAUD by the way TB2 ayay ku socotaa TB1 mar hore ayay nagu dhacday don't worry guys arrintan dad ila jooga hadda ama dhalinyarada ila joogta aniga Istanbul ayaa samaysa waxaan ku iraahday qof walba inta idan baray baan baray because wax kale ma jiraan waxba ma idinka qarin aniga everything aniga aan akoonkayga ku koriyay waa inta hadda idin sheegay maxaa marka ku yiri intaan hadee baxasi tahay shaqada kaliya ku taala wax weeyaan inaa intaan ku celcelisid ilaa ay aamano hadda badan kugu soo gabagabeenaya Mr. Nicola Liban magaalada Muqdisho joogta Soomaa xaafadee ka joogta so wardhigle baa ku kortay oo ilaa yaraantaadi joogtay miya يعني السعودية كل شيء لكن إلا سنة طبعا حيوك كارت إلا سنة طبعا سنة شر إلا سنة طبعا سنة شر كبسوا قادنا ورديجلي كارتي جبين سينا دكسيو القرآن كأدي إن ورتنا وضع الله إن هلك سكول كديجنس إن وحول بحلك كوحي هذه ما تتفق لو سوى فريسيو أو لو يراد ولا تسي مجال هذا ولي قاتكنا سوق قبل نبرة أو أكل ولي قامياتك أما بيدبا أكل أما بربرمي أو ولي قاتك هذه لو قدوا بربرة كشيكين ما كشيكين كرتا كم شيكين كيرو لكن دول دورت ورتنا وضع كشيكين ما كشيكين كرتا وكيف على كراسي في عن عدا ما خلي ستة ما ورتنا ما تكشيك يا مركل ولا تي في أدو تاجنا ميكروفون ولا أرفلي لكن ديرو دو كشيك بربرة أما برعة أما بوساسة كشيك دول دم يا كشيكين كرت حتى أدو بوكسو أخريي ويربخ بقصة سوما حتى بقى ريت لسان الله دقنتها هدي أرولس كلابا تنكون أو شير أكو على العليسي وحأنيجا حتى إيه موضح meelahan oo la tagay oo green kan la sameystay because 8 kun oo jeer baan soo arkay iyadoo sidaas kala dhacday so arinta ku haysta waa arin psychology kaliya kuma haysta badan bay haysataa isku day insha Allah ina sidaas aad wax la yiraahdo samaysid guys idinkoo dhan u mahad celiya Liban wuxuu ahaa ardayga ugu horeeyay oo live ka soo muuqda Liban maanta ka hor waliga miyaan wada hadalna labadeen never maan wada hadlin sidaas la mid ah ayaa idinkoo dhan ii tihiin dadkoo dhan way ii sameeyeen luuqaasi igu wada jiraan dhalinyarada maamulaysa Discord-ka ayaa ii soo qabatay Liban I don't know in idinku istaqaanaan in kale iyo in si guud ku soo qabtay qofka ku soo qabtay sidaas la mid ah maalin walba laba qof saddex qof ayaa la soo qaban doonaa okay u mahad celiya ninka la yiraahdo Liban aad baa u mahadsantahay Liban insha Allah ardayga ku xiga ayaa soo qaban doonaa الله بركي الله بركي إن شاء الله هذا هو ما تسميه هاي نكري هذا الليبان عصوق من يا أرضي كحجة أو وحفيني أرت سؤال جواب تبينا كقنا عذين أو أضحي ستان صوما قبر أن يسوق من يا إن شاء الله هلو السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة. سودو آمنة. إن كبلو مقعد صدحن يا مشاعر توكتيد إن وحكوا دقي سنة يدت كودو إمكا إلى بقولي سجاشن قفا يلا يفكوا دقي سنة سدب عنكم أنا كلنا وبسيط كي كاري سنتون هدو. كسودو يان كله حي إن وحلي هذا اللايف كان إن شاء الله. ما شاء الله أستاذ ودي هاي. السلام عليكم طبعا انت كنت احيانا اكاديمي سمعت اسم الاكاديمي وابن السلام ولا لي طبعا من الباجيتان marka xigta magacaygu waa Aamina Amnud joogta magaalada Muqdisho ardayad oo ah ardayad wax ka barata jaamacadaha yaala magaalada Muqdisho runtii maanta farxad ay ii tahay inaan ka soo muuqdo si waxaan wabinaarkaa inaan ka soo muuqdo runtii aad farxad ay ii tahay ما شاء الله وسيدو كلا سودو وكفرح سنة إن أنا لا شوكتد إن آمنة إمسا أي هذا فوركس كتيرتا محاكم إذا وحيالها أتكلم كلانتي إيو وحيالها إن أدوني سيدينا إن شاء الله قلبت الله يفكشير جريسي سودو ما شاء الله هذا أستاذي حتى فوركس دي له متعاد فربنا فكرة متكون دوسات إيو لاودلات حيانا كتير محاكم إتحايا سنة أو حال جواب جونتي أو قصور بيري جونتي هذا بيشي هذا نوع أصلا أخذت جون أو قصور بيري هذا ما تبين سديت جون واي لو بلو كوري سنة فوركس بحاجة في برنا يجيك أو
iyo hayna academy youtube channel caadi ah muddo marka sanadkii 2 bilo isku noqonay labadaas bilo xag aan qaadi jiray iyo muddo sanadka hadda aan ku jiro hayaan comedy oo aan ku jiro safarka hayaan ما شاء الله soo dhawow Amina mar labaad ayaan ku salaameynaa gabdhaha aad u faraha badan oo nagala socda Discord keena ayaan academy iyo YouTube keena ayaad matalaysaa iyo wiilashaba dabcan sababtoo ah in ilaa 6,000 oo qof dadku dhawayaan ayaa noogu jira chatka meesha aad ku sheekaysataan 6,000 oo qof fursad uma wada helayso inay Zoom ka soo dhex muuqdaan labadii qof ugu horeeyay oo dadkaas oo dhan hadlaya ayaa kamid tahay isku day marka su'aalaha inaad dooratid adoo dadkaas oo dhan niyada ku haya oo su'aalihii iyagu aysan live ka sheegi karin adigu aad u matalaysid u gudub marka su'aashaada insha Allah koowaad waxaan isku dayi doonaa inaan su'aalaha ka jawaabo kadibna waxaan isku dayi doonaa sawiradaada inaan falanqeyno wixii fikir oo lagu darayo iyo wixii insha Allah ka dhiman soo dhaw markale insha Allah ustaadi maanta firsada aad qiimo badan oo aad muhiim u ah marar badan tahay kadib markaan ku macnaa ku isbaa forex oo kaleete su'aalo badan oo aad u tiro badan oo kale way jirtaa oo iga dhex guudi jiray oo aan jeclaa mar oo inaan mentorkayga inaan weydiiyo si uu iiga caawiyo maadaama ay jiraan arday fara badan oo isla fikirayno oo aan meel inta ay gudul asku jirno program ahaata ama Discord ahaata mooyaane ruuxaantii hadda maanta aad u faraxsanahay su'aalaha aan ku dhex buuxay inaan idina share gareeyo kasta ay ka qurux badan markii hore su'aalaha aad u fara badan aan kala jirno sayidina uga dhex buuxi jirtay laakiin balse maanta waxaa qabaa laba su'aalo oo aan rabo yani kaas ahaan inaan okay ku soco marka su'aasha koowaad ku bilaabaya waxta su'aasha koowaad oo ugu muhiimsan oo muddo oo ilaa hadda iga hoos baxsan oo muddo aan ku wareegsanaa maskaxdayda xiriirkiisa ka helay yani component nidaamka lacag kobcinta oo u daranayay markii yani istiraatiijiyada aan fahanno suuqaas oo shaqaysanayaan dhammaan intii aan wada fahnay everyday waan soo wadaagsanaa oo yani waa trade karanaa intaasoo biyo waan qabanay iyo waxaan mar walba is wadaagnaa laakiin dhibaato ku badan ardadeen haystay ee helay inta adigoo mararka qaar inay noqoto yani lacag inta aad ku talagashay inaanad ka qaban suuqa ama in kalabarkeedii aad qabato ama isbuucaasi wax naqli aadan ka qaban noqotay in ayna adoo hadii helay yani in dhibaatooyin meelaha camal ay ka dhacdo marka dhibaatooyin hadda aniga qabsatay waxay eeday markii oo sidii lacag korin aad samaysto oo kaleetay oo compound effect aad samaysto shalay wuxuu ahaa maadaama 23 bil internet gareey in 10 bil inaad ka dhigato 10 bil waxaa laga yaabaa in niishadu waxa uu ka badan soo baxaan bisha 10 bil dambeysna waxyaabo ay khaldama marka 10 bil inaad ka tigiraysid bishii 10 bil oo noqoto oo macquulsan marka deeyi marka jadwalka aad ka dhigid sidoo kale ee ku dhaar jadwalka uu maanta intaas ka yaab kale waxaa laga yaabaa maanta isbuuc hore kale iyo isbuuc aan tirin lahayn oo kale hadii kale marka hajid oo kale fursad sharci u ahaa ina trade ka laba fursad aad gashay sida shan qoliba ku shaqo sida consider part iyo sida consider trade marka aad gashay oo kale waxaa laga yaabaa markuu target kaaga loo trade target in ku dhaco oo kale fursad maanta in aad suuqa ka qaban aad eegto okay su'aasha koowaad aan kala dhigdhigna Amina ma sha Allah su'aasha koowaad waxay ku saabsan tahay akoonka sida loo koriyo sida marka cilmigii iyo istiraatiijiyadii technicalkii marka baratay sidii aad lacag u korin lahayd waxaad soo qaadatay compounded wax la yiraahdo ama the compound effect oo ah barnaamij weyn oo forex ka xataa ka baxsan oo sida lacagta loo koriyo asbuuc walba inta lagu darayo maalin walba inta lagu darayo go ahead su'aasha koowaad way taas waa fahmay marka dhibaatada ugu badan oo caqabada ii qabsado waxaa kamid ah marka isbuucan oo kale marka trade helo kaleete oo yani TV igu dhaco in aan gaarin targetka oo baxnaa kaleete maalin caday ka 4 bar 3 bar inaan helo kale oo tradeada aan ka furtay kadibna targetkii markay gaarin in aan ka baxay trade-kaas balse oo weli uu sii socdo maxaa kale inaa yani kursada u baahanahay in risk management aan u isticmaala lacagtayda mashino u baahanahay marka maanta marka helo kaleete in yani targetkayga uunan ii gaarin maalin kale targetkayga gaari trade sii socda oo aan ka haray arrintaas waa arrin okay ma sha Allah waa su'aal aad iyo aad u muhiim ah dabcan waxayna muujinaysaa technically inaad tahay qof diyaarsan oo suuqii baratay haddana u tafaxaydanaysa sidii aad lacag ku samayn lahayd well done runtii qodob koowaad oo isleeyahay uu u baahan yahay inaad focus gaaraysid waxa weeye marka leedahay daily goals dailygu ma ahan every day okay waxyaalaha ka khaldan bay kamid tahay compoundka oo ma oran kadib isniin waxaa laga rabaa 500 talaada waxaa laga rabaa 550 arbaca waxaa laga rabaa no dailygu waxa weeye wuxuu kaaga bilaabanayaa daygaasi maalinta trade helo salaano kale hadaa monday hal trade heshid that's your day one
haddaad talaadada iyo arbacada wax trade weydid oo khamiista aad trade heshid day 2gaagu waa khamiista ee day 2gaagu talaada ma noqonayo okay waxa la rabaa marka compoundka iswaafajintiisa midka website-ka compounddaily.org uu ku siinayo iyo kan way kala duwan yihiin ma garatay haddii iminka aynu tagno website waxaa jira la yiraahdo compound yes haddii iminka aynu website-kan tagno yeah this one exactly oo aad tirahdid let's say ECM baa istaa $500 baa ku bilaabatay $500 waxaa rabtaa inaad 4% aad korisid waxaa rabtaa inaad muddo 30 casha inaad korisid inaad wax lacaga kala bixin wax lacagana aad khasaarin marka soo qaadanaa weekendigana uu ku jiro so waa bil oo kale marka basically so bishaas hadafkaaga waxa weeye inaad akoonkaaga gaarsiisid $1,621 micnaheedu yahay inaad laba jibaarta akoonkaaga so marka uu ku dhaw marka maalintaada kooda wax laga rabaa $20 maalintaada kooda micnaheedu khasab maaha inaad maalintan uu ku tilmaamay oo arbaco June 9keeda in laga hadlayo maaha sheekada aysan mar walba dhibaatada dadka u keentan waxa laga hadlayaa biri hadaan trade helo maalintaas arbaco ku ah so day 1 waxay ku noqonaysaa maalintaas ku noqonaysaa boss kandan meesha ka saar day 2 barka baa jooga hadii akoonkaagu uu marayo 520 day 2 baa la jooga haddii akoonkaagu 632 marayo day 6 baa la jooga ilaahumma 10 days kugu qaato inaad day 6 ku gaartid halka ma fahamtid waxa laga yaabaa 11 days adoo trade garanayay inaad wali day 4 joogto baa dhici karta because day 4 ka aad joogto waxay ku xiran tahay akoonkaaga lacagta ku jirta kaas waa qodob ku caawinaya iswaafajinta compoundka iyo akoonka qodobka labaad oo ku caawinaya waxa weeye inaad lacagtii aadan ku kaydin ama ku korin inaad ku korin MT4 oo aad bangiga akoonka furatid mar kasta oo 500 aad 600 soo gaartid inaad 100 ka saartid oo kale ama 700 markaa soo gaartid inaad 200 ka saartid 500 waa inay ku tahay xamaali adigu ku shaqeynaya oo kale mar kasta oo $200 uu soo saaro xamaaligaas waxa weeye waa inaad ka saartid oo aad bangiga ku kaydisid video baan ka duubay ayaan dhexdaas waxaan filayaa inaad joogtay ama YouTube-kan soo geliyay hadda waxa muhiim ah inaan kulli ku noqdo marka taasna xagga ka qiyaas qaado tanna sidaan samee midda saddexaad oo arinta ka caawin karta oo ayadana aan kula talin kara waxa weeye inaad akoonadaada qaybisid oo kale oo haddii $500 haystid laba akoon u qaybi akoon 300 iyo akoon 200 u qaybi akoonka 300 compound ku kori akoonka 200 waxa ka dhigtaa inuu kan ilaaliyo oo $200 markisto aad 100 ku dartidba wuxuu isagu u shaqeeyaa akoonka 300 inuu koriyo okay waxa dhici karta inaad 3 trade ku furanta USD JPY GBP USD Euro USD oo trade cusub la helay akoonkaagiina aad fursad ma ka gali karin kan labaad baa laga galaa marka waa very simple FX Primus hada akoon ku leedahay intii akoon oo dambe ayaa ka sii daba furan karta marka insha Allah waxa laga yaabaa inay dheeraatay jawaabtu laakiin waxaan filayaa inaad heshay jawaabtaada dadka badan oo kula fikirka oo ayagana jawaabta madaxooda ay ka waxsan xarajinaya insha Allah inaan ka faa'iideysto وهذا محاكم سؤال كلام يا تشتم سوا 10 waxaan u gudbaa kuwan مستني عن سؤال كان ذكر أو يعني هذا أكون لواء وكلام بك فيه ومعلوم في سنة وكلا أكون لواء إلى في أفرد أو مكان وكلا نجي راك أفرد طيب وأكون كي إكسبيرينس مركا وحربي كريدس أو سمول تريدس اللي قاعدين كرا أو يعني أو كان فرنجة ما كي مدة وكلا سمول تريدس كلام فعلا ترى العجاب يكون حبون هاي جي بي بي ياش جي بي بي ياش oo dhan ayaad insha Allah sidaas ku sameyn kartaa marka waliba London session la joogo subaxdii oo GBP beersimo GBP iyo kale subax walba London session waxyaalaha ku caawinaya waxa kamid ah oo kale hadda marka wana warka tagtid oo aad tagtid waxa la yiraahdo meeshan zone bay toma hadda halkan waa aan dhahno waa demand zone waa supply zone aan dhahno soma وانا ورقه جوغا اما صدنك دقوينك سو كاندلكاس ايزي كاندل وايه كدب كان ايا وخ كاغا باهان yahay inaad soo akhrisid intaan ayaa wax kaaga baantay inaad soo akhrisid as a contractor ahaan saataa akhrisid marka maxaa la tagaysaa lower time frames ka la tagaysaa ee hoose ee suuqa ayaa la tagaysaa kadib maxaan raadinaynaa in kan la soo jabiyo kadibna lagu laabto korki Soomaaliya garan lower high-gan actually hal mid baa ka sareeya kan kiisime oo kana ma filayaa higher low higher high so kan oo kale ayaan fiirinayna let's go all the way down to the 1 minute ka yeah
zonkeenii baa lagu soo laabtay waana la soo jabiyey ayaan dhihi karnaa exactly so one more baa ka hooseeya aan filaya inuu kan yahay kan waa la soo jabiyey sida arkaysid kadibna waa lagu laabtay meeshii ku ahayd levelka then waxaa la rabaa tradekan oo kale haddii aad ka faa'iidaysto oo afiiqan ka gashid sida haddaan kuwa calaamadeeyey oo kale waa inaad 4 bbs 3 bbs ka badan uusan asalkaagu ahayn marka kan oo kale 3 bbs buu sheegayaa so 18 bbs kaas kale inuusan ka badnayn targetkana always waa inuu halkan yahay opposite zone-kan 64 bbs ayuu noqon lahaa GBPUSD waa lacag weyn runtii markaan ayuu kasii shinaa waa la oran karaa halkaan u imaanayay sidaan oo kale u isticmaal samee insha Allah barnaamijkan weli idinma guda gelin oo sida lower time frame-ka loogu dabaqo istaraatiijiyadeena waa inaan tusi doonaa fiidiyoyana waa ka duubi doonaa inta ka horeysa insha Allah isku day inta ka taxadari kartid inaad ka taxadartid okay inshallah ustaadi lama aqoon hada si bilaaw oo noqdo aan shaqsi oo aadi inta baahan waqti ku yaad helin ku sii qaato time frame ma sha Allah sidaas ku wada ilaahay idno halkan waxaan arkaa trick euro AUD waa soo diyaarisay runtii oo trick qurux badan ah xayr hagaag waa kana u dambeeyay xayr loogiis waa kana waa la soo jabiyay fursadda selka ah waa tan weyn aan sugayno asaate halkan laftirkeeda waxa ku beegnay demand zone oo halkaana soo counter trend kan ayaa u baahan tahay inaad ilaashatid extra halkan ku taalo oo kale ayay hedina halkan dhigatid marka isaga la jabiyo lagu laabto kan inaad qaadatid buy to sell trade sida u fikraysi waa sidaas oo ma hadaba waxaan oo dhan maadan aqoon inaad daawatay fiidiyoyada ku jira website-keena smartinvestmentacademy.com صح إن بستوي في لشفنا داوي وكل اللي ومدة وانا براكتس كمان أريد كهاي وأنا قبض السوق هنا وتقدر بدنا كأكل. وح أقول لنا صوت عن كلا هذا experience اللي هذا يعني مدة وانا كأبدا حجرت له كلا لعلها ناجرس كجديد إليه هنا براكت ومدة دو إذا شك ووافق على ناجرس كده قاقان بدون إنه يلا مكلك. هذه إن إسكودي مركي إن شاء الله أنا شوف تيسيد تلاقي ويلك كوري عسي أديكنا إسكودي ناس ميسيد أو إن دور بقول أو كن أو تريد إن ديارسيد ما تريديو اسكو امتحان مسيد سيدي عرقرة أو كلايكاتا ما تريديا أرككرتيد أو أن ديب كمين أديب بحديد أسود أرككرتيد إسكودي إن ديارسيد as many traders as possible إن ديارسيد إسكودي سي إشالو ولقب سطو تريديا دي يقابك أو دسمان وفهم سما ما شاء الله وحرجينا يا أنا سؤال هذه أنت صحيح وسوى حكى لك وهرسنين أرضي ذا كلا أيان إن شاء الله يجنا كان سيندونا وحامدا زوم كان إنه أدو ديرادي وحنا سببه زوم كيشالي أو سنينتي أها أيا لك فرصة مدرتي باقي مركا أمينة هادو ما زنت حي وحربا one last person إن كان سينو أنت أين سوق بجبين زوم كنا نادبو ما زنت آمين صدوا إن شاء الله وحرجينا يا ناس على هذا جوابه ذا الشيء فيديو إن شاء الله دبوا داون دونتا. أوكي بقولي أنا ما صرت أنا دمع جزء وشوف فرصة أنا فينا دم. هذه كمان إن شاء الله صدوا. وحقاق قف كسر وحقف كي لبعض أو منا أدمنسك وحي نصو حلين لبقف ولا بعض من مقدسة شوكته حسأته وحلقة يابا إنه كان سكوبيعي يعني ما كلا وحنا يا دتك إسكسور احترق أو قربها جوجا دتك دلكي جوجا مقالين كلا ددونا دلكي دتك جوجا سيدا كونفورتا iyo waqooyiga iyo bariga iyo kulli isku soo daray insha Allah dhalinyarada jaamacadaha sidoo kale hambaliyo ayaan leenahay gabar weeye ardayad jaamacadeeda dadaalaysa runtii mintid ku jirta diyaar garowga iyo lacag korinta iyo wax tabacana wiilasha inta ay badan wiilasha kamid ah kaga horeysa sidaan arkayna marka bogaadin bay mudan tahay hambaliyin ayay mudan tahay waxaan isku dayi doonaa qofkii ugu dambeeyay insha Allah isbuucina inaan soo geliyo kolka Master Abdifataax محمد السلام عليكم عبد الفتاح صدو ان لايف اسكتوج عبد الفتاح اما عدك كغابي نوصل لبا نقونيا هدي كلا هذا كان صدو مركواد مغعاغا استحن iyo meesha aad joogto ku bilaabaya بسم الله الرحمن الرحيم باي وعد فتحنا السي جوجا magaalada Jigjiga ardayda ah secondary high school Shafran ما شاء الله Jigjiga waan tagay sanadkii hore 2020 ka ayaan joogay mar laba jeer baan waliba tagay ما شاء الله ma isaragna marka aad fitax mise
دي مع عرضي دلنا marka gadaashay baa forex soo gashay miya ما شاء الله jigjigo waan tagay عرضي وحنا صح وستو ما شاء الله صدق ardaydii waxaa tahay fursad u heshay smart money investment oo khayaan kadib nagu soo biirtay ma sha Allah soo dhawo cabditaaxow jigjigo dad aad qaaliya jooga dhalinyaro aad dadaal badan ayaan ku ogaa maxamed ninka la yiraahdo Amaar ninka la yiraahdo Shuayb ada maqlasaan kuligiin waa salaamaya niman aad dadaal badan ayaan ku ogaa halkaas ma sha Allah salaamullah kuligiinba u gudub insha Allah su'aashaada waxaan ku faraxsanahay marka hore inaad aad nagala socotid Ethiopia ama dhulka Soomaalida Ethiopia oo runtii ah cirif kale ka duwan meesha ay kooxdaan dhan joogto marka soo dhawow adoo su'aashaada ku bilaabaya iyo trade-kaaga insha Allah soo fiirin doonaa طبعا سؤالي حويان وفوكس كوا مع أنيقو تريد سوية بان عير خير سيجي سنة تريد كوا دافعنا فيها مع واحد فوكس كسنة اوكي تريد بعد يارسنا سا تريد كيو كنا في بارك سايو فايدة اسمية ها مع تاسع أنيقو استراتيجية مع سمارت انفستمنت تبي كبدا ما استراتيجية سفي عامة فاهمين مشكلة هذا واحد هاي إن هذا وقت حين هذا محاقبتها simple question ما أنت هذا سوي وقتها مركز وقع عليه إلا هبينك مركز يحانس المحاكم مش وحي برايف هذا وحمام هي ما ينشي general المحاسن يسا حوية معه وصوفر يسا وان تريد كيون فرا وان أغاقا وحي فرصة وان سويا بعد إنير من يرسي كيسين تريد كيون waxba adoon qaban iskuul ma aadid shaqo ma qabatid wax kale ma haysid adoo guriga fadhiyo ku dhaafaa daniga taatay markaas adaa khalad kale markaas Netflix miyaa daawataa iyo YouTube YouTube kaasan ku badan macaan waa wax fudud jana galay dad badan baa laga yaabaa inay cilada la qabaan waxa ku xalin kartaa inaad jadwal nololeed samaysatid inaad timetable samaysatid aad dul fadhidid computerka sida ugu fudud oo aad ku xalin kartidna waxa weeye arintaas in trade-ka aad ku xiratid alarm saraan kale meesha intriga ku amaada TB2 baan suganayo kala soo maaha TB2-ga oo kale aad alert balnaya alarm ma ku xiranaya kadib computerkayga ama YouTube-ka aan daawan laha ka daawanaya ama wixii aan qabsan laha ka qabsanaya ma garat kadib marka alarmiga xiratid alarmiga gudaha marka u soo gashid waxa laga dhigtaa inuu app-kana ka soo qayliyo inuu computerka pop up ka sameeyo inuu email soo diro webbook waxa la yiraahdaa meeshan hadda aan ku jirno URL-kan inuu soo boodo mujada kadibna save file dhaha intaan oo dhan baa hadda aniga ii wada saaran soo haddii wax dhacaan hadaan fadhiga ku maqanaayaan xafiiska ka yara baxo haddaan qolka kala joogo haddaan bas saaranay magaalada joogo meel un baa ii soo qaylinaysaa okay ama waxa ii soo qaylinaysaa ama appka ii soo qaylinaya ama haddaan computerka dul fadhiyo xataa aan meel kala joogo halkaan joogo kale pop up ayaa soo baxaya hadda tusaale yar baan ku siinayaa 1 minute ka tag dad siyaada meelaha uu marayo ayaan ka sameynaynaa hadda halkaan oo kale keen meelahan hadda uu suuq marayo ayaa isku daynaa inaan alert ku xirno kadibna xaggaan aan imaanaynaa hadda halkaas iskama joogno oo trade-ka ama firfiirinayno alertigii baa soo boodaya oo soo qaylinaya okay marka waxaa jirta momentum shift weyn oo qofka traderka u baahan yahay anagu umaynu baran inuu qofku intuu isagoo gurigiisa fadhiya oo click oo internetka siiyo inaad lacag badan oo $100 ku samayn karto umaynaan baran qofka waaridkeena haday noqoto walaaleenaga waaweyn haday noqoto bulshada haday noqoto qofka $100 sameeya waxaan ka aaminsanahay ama waxay ahaydba qof banaanka u baxa soo shaqeeya daqiiqado badan banaanka jooga Soomaa marka lagu dhaho qof gurigiisa fadhiya $100 sameynaya aqliyan waxay u baahan tahay si kale oo looga dhaadhiciyo oo aan hadalkaas kaliya ahayn so sida kale looga dhaadhicin karo waxa weeye inaad daqiiqadaha guriga fadhidid computerka focus badan siisid inaad saacado badan wax diyaarisid in wiilkii ka horeeyay oo ninka la yiraahdo Shujaaca taladii aan siinay inaad sameysid oo aad ugu yaraan 6 hours ilaa 12 hours a day inaad trading view ku qaadatid dib u bax lixda qodob waa fahmay Soomaa confirmations keena lixda qodob trade laga helay raadi kaliya simple as that
thousands of traders oo lixda qodob laga hela raadi kuwa intriga aan ka sugayna hadda oo aan isleenahay hadda fiir hadda dhinacaan u dhaqaaqay halkan aan ka dhigaynaa fiiri waxa la yiraahdo alartigeena dhinacaanba aan ka dhigno okay kuwa aan intriga ka sugayno iyaga soo qalqelinaya GBP/NCD oo kala iska joogta hadda ama waxa iska joogta aan dhahno USD JPY meelaha wareegaysa ama trade kaaga aan fiirinaya aad soo dirtayo NCD JPY alarmida ku soo qeylinaya sax marka waxa la rabaa ina wixii ay shaqo ka noqoto oo dagaal weyn baa waxa kula jirta society-ga iyo bulshada because bulshadeenu dhan waxa ka dhaadhacsan qofku $100 sameyn kara asbuuc gudaheed waa inuu saacado badan shaqeeyaa waa inuu hawl hayaa waa inuu meherad furayaa waa inuu xafiis joogaa waa inuu shaqo xoog iyo u baahan dhidid waa inuu qabtaa laakiin adoon dhididin oo sariirtaada ka dulkicin ama firaashkaaga ka dulkicin ama fadhigaaga ka dulkicin ayaan $100 sameynayaa afka waa laga dhihi karaa laakiin mindsetka fog iyo caqliyadeena hoose si ay uga dhaadhacdo waxaa la rabaa dadaalkii u dhigmayna la timaadid saacado ninkii $100 shaqeynaya ama gabadhii $100 shaqeynaysa wixii ay qabanaysay wax leega inaad qabatid waa inaadan is oranayn $100 baan shaqeyn karaa 5 daqiiqo waa iska baashaalaya waa inaadan oran okay waa inaad tiraadid sidii qofka silica ku soo hela $100 oo kale ayaan u shaqeynaya sidii qofka saacadii $20 shaqeeyo kale u shaqeynaya waa inaad tiraadid arrintaas ku caawin doonto insha Allah ku arjeenaya su'aashaas jawaabteeda inaad idinko dhan aad hesheen aad buu u mahadsan yahay Abdiftaax Abdiftaax tariidkaaga maxaad doonaysaa inaan ka sameeyo oo aad rabtaa inaad iga tustid ka hor intaanan dhexgelin waxaan ka tusirabaa macaan laa iyo korkaas soo ma soconayo waxaan rabaa inaad iga dhaadhicisid sababta uu tariidkan muhiim u yahay ayaan doonayaa hadda sababta aan tariidkan kuula qaato baad doonaya inaad iga dhaadhicisid hay go ahead macaan horta tariidkan istiraatiijiyadii oo dhan way qaatay waa qodob haye tick isar trendigu waa uptrend higher low higher high tick waa ka haya demand zone waa kana tick waa ka haya liquidity wala uusan aad u qurux badnayn halkaana ka muujisay okay waa ka haya asagana liquidity waa la soo jabiyay break of structure kimay waa shan waxa la digtaa 15 mirir baa ka heshay dib male okay dib male 15 buu ku jiraa dib male insha Allah horta waxa fiican mar walba liquidity inuu hoos joogo liquidity aad buu u fogiyaa kor buu ka jiraa qodobka waa qodob muhiim ah oo tradeyada liquidity korka ka jiro inagu waxay rabnaa liquidity in dib loogu soo noqdo dhexdiisa la soo galo si trade kugu shaqeeyo so liquidity fog oo kale inta dhexdiisa lagu soo noqonayo waaba TB-gi oo dhan bad so waxa fiican inaad sugtid suuq inuu meelahan hoose liquidity kaasi taa waa qodob kale waxa weeye aniga NCDJ buu ma trade gareeyo adigana kugu lama taliyin inaad trade gareysid because waxa la rabaa soo qeynayso ma jiro alertigan ku xiran soo qeynay أنا ما ترى ديما ما كسب برتا maya waxyaalaha kale ku barbara diimaha tradeyadan listigan aniga aan idin soo diyaariyo ku barbara diimaha kuwaan ayaa diimada ku fiican ama deemada inaad ku barbaratid okay marka insha Allah ayaga ayaad focus ka saar doontaa NCDJ buu sababta aan trade garanay waxa weeye waa lacagta New Zealand iyo lacagta Japan midkoodna male volume weyn oo ay waxa la yiraahdo عشان ay ku kaxayso suuqii hadii volume badan uusan jirin oo lacag badan aysan suuqii dhex kulayna volatility uu yaraanaya pool of liquidity uu yaraanaya wuxuu keeni karaa inuu stop loss waaliyo kugu abuuro wuxuu keeni karaa inuu sin targetkii ay ku gaarin wuxuu keeni karaa inuu iska daba wareego marka that's why anigu u jeclayn lacagaha JPY-da inaan trade gareeyo so liskayga aan mar walba idin soo diro ku dhagano hadaa wax practice gareynaysid lacagaha aan ku soo diro oo website-ka aan soo geliyo iyaga ayaa dib ugu noqon kartaa traders-ka tag lacagahaas u isticmaal USD JPY 200 oo practice ka samee GBP AUD 500 oo trade ka soo samee Euro NCD Euro AUD Euro JPY Euro GBP GBP NCD GBP AUD waran sama kuwaas ayaa ka badan hadii aad back testing iyo practice sameynaysid okay idinka oo dhan sidaas aan filayaa warka haye buugaagta psychology صح kuwa ugu fiican akhrisan karo macna ni horta wax psychology la yiraahdo oo forex ku saabsan waxa jira nin la oran jiray
nin la oran jiray Mark Douglas oo hada geeriyooday 2015 ayaa laba buug oo aad u qiimo badan ka tagay labada buug uu ka tagay mid kamid ah markuu dhintay kadib xaaskiisaaba samaysay oo waxa la yiraahdaa The Complete Trader ayaa la yiraahdaa psychology uga sheekeynaya waa buug hadda aan insha Allah rabo inaan waxyaalo badan idin ka soo diyaariyo mid kale internetkina ka helaysan baa u malanaya magaciisa waxa la yiraahdaa The Discipline Trader ayaa la yiraahdaa oo 1999 kii miyuu daabacay mise 2000 buu daabacay labada buug qofka hela u malayn inuu buug kale u baahan yahay okay midna waxa la yiraahdaa The Discipline Trader midna waxa la yiraahdaa The Complete Trader labada buug psychology ka hadlayaan waxaad ogaan doontaan marka labada buug soo akhrisaan waxa labada buug ku qoran oo dhan 3 sano la soo dhaafay inaynu ku celcelinay Trading in the Zone waa buug fiican laakiin psychology ahaan labada kala ka fiican Trading in the Zone isla asaga qoray buuggiisa caanka ah waxa la yiraahdaa ninka ku sheegay Mark Douglas Trading in the Zone baa la yiraahdaa asate Trading in the Zone wuxuu daabacay 2000 kadib 15 sano ayuu wuxuu wada research 15 sano ayuu research waday oo uu adduunka dhan isbedelay internetka soo dhaxgalay 15 sano researchki uu waday ayuu wuxuu isku keenay buug la yiraahdo The Complete Trader buugga asagoo aan daabicin ayuu geeriyooday ninkii wadna xanuun baa ku dhacay kadibna uu geeriyooday islaantiisa ama xaaskiisa oo la yiraahdo Paula Webb ayaa buuggii daabacday marka Paula Webb iyo Magnus baa ku raadin karaan ma u maleynayo buugga labaad in internetka laga helayo oo The Complete Trader la yiraahdo balse asagoo $50 ayuu wuxuu yaalaa Amazon oo waliba waa Kindle weeye oo buug hard copy leh maaha Kindle ahaan ayaa la akhrisan kartaa labada buug insha Allah ka faa'iideysta buug kasta oo aad ka faa'iideysan kartidna waxa ka fiican psychology ahaan daartiin wax fahamtid gacanta waxa laga qabto so every word oo aniga afkayga ka soo baxaya isku dayna ficil u bedesho oo hal mar maaha laba mar maaha 5,000 oo jeerina ficil u bedesho isku day psychology walba u baahnayd halkaas ayaad insha Allah ka heli doontaa hadda ma santahay Cabdifataax idinkoo dhanna waa idin salaamayaa Cabdifataax waa qofkii u dambeeyay saddexda dhalinyarada ee galabta aan mood ka qaadnay dadna su'aalahoodan ka jawaabnay iyo trainingskoodaba insha Allah asbuuca dambe sidaas oo kale saddex kale ayaan insha Allah fursad siin doonaa asbuuc walba saddex qof ayaan fursad siin doonaa si sanadka meeshu dhamaado ugu yaraan 100 ilaa 200 qof ay fursad u hesho dhalinyarada adminiska ah ee idin kula jirta Discord-ka ayaa idin soo sheegi doonta ama idin la soo hadli doonta markay dhaqdhaqaaqiina arkaan iyo gurubyada sida uga dhex hadlaysan iyo waxaas markay arkaan aada u maasanta Cabdifataax Allah ku barakeeyo channel soo dhaw insha Allah guys intaasaan kusoo gabagabeynayna insha Allah call-keena runtii waa u dheeraaday intii loogu talagalay wax badan ayuu ka dheeraaday hasaate waxaan filayaa inaa wax badan ka faa'iideen labada tiriyeen overall oo GBP AUD iyo USD JPY ah insha Allah waynu u joognaa trade-yada kale oo dhan hadii ay fursad yeeshaan waa soo diri doonaa haddii Ilaahay idmo inta aynu insha Allah khamiista markala kulmi doono beriyo Arbacada baan kala maqanahay maalinka khamiista ayaan markaas arki doonaa inta khamiista arki doono kulligiin waxaan leeyahay salaamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh